nabadgelyo korkiina haato idil ahaantiinba waa barnaamijkeennii codka warsameeya wacdaraha nolosha. waynu ugu wanqalayno taxnihiisa koowaad mowduuc muhiim ah waa jacaylka. waa maxay jacaylku? waa su'aal daaweyn oo madaxa daalinaysa, haddana in laga hadlo oo wax laga yidhaah waa mid aan laga daalin. kolka innagoo halkaa ka duulayna waxaynu warcelin u raadin doonaa weydiinta ah waa maxay jacaylku. waxaa la yidhaahdaa jacaylku waa dareenka caatifadeed ee ugu cimriga dheer waa aragnimada aadmiga. waxa uu door weyn oo muhiima ka ciyaaraa nolosheenna iyo jiritaankeeda. waa dareen dhan kasta inaga jira oo gebigeennaba isweer inaga haya, kaasoo inagu hoggaamiya waxyaabaha aynu doonayno ama rabitaan aan u qaadayno intuu doonaba rabitaankaasi ha leekaadee. waa dareen inagu beeran, waa ka marar badan ina geliya xaalad liibaaneed oo aan tabasho lahayn, marna murugo iyo walbahaar inoo horseeda. jacaylku waa dareen furan oon soodin cayiman lahayn iyo meeluu ka bilaabmo ama ku dhammaado oo laysla yaqaan. sidaa darteed way adag tahay in la qeexo dareenka aan xakamaha lahayn. marka laga duulayo waayo aragnimada ku saabsan dareemada kala duwan ee aadmiga ee aynu garanayno iyo siduu u saameeyo jacaylku dadka, waa mid ballaadhan oo dhinacyo kala duwan iyo marxalado kala nooc ah leh. tusaale ahaan, qofku xilli buu cadhoodaa, waxbuu nacaa gaara xilli gaara. kolka wixii uu necbaa xasuusto ama arko ayuu dareenkaasi soo galaa. mar kale qofku xilli gaara ayuu naxaa oo waxbuu ka naxaa ama cabsi dareemaa. si haatee jacaylku sidaa wuu ka duwan yahay. waa dareenka keliya aynu dareenno marxalado kala duwan si isku mid ah. waa dareen haddii aynu cadhaysannahay, haddaynu faraxsannahay iyo xitaa mararka aynu xaalad iska caadi ah ku jirno aynu dareenno. sidaa darteed waa dareenka koowaad uguna salka ballaadhan ee aadmigu leeyahay ee ku dhex jira kuna lama nafsiyaddiisa. kolka ma fududa in jacaylka si fudud loo qeexo ama ereyo loogu koobo. dareenka sidaa u dhumucda weyn ee cajabta leh, haddana waxaa qasab noqotay in wax laga yidhaah si fahamka loo ballaadhiyo, aadmiguna u wadaago way aragnimadiisa iyo awooddiisa dhiiran ee ah inuu wax walba wax ku calaamadsado una aqoonsado. sidaa darteed waxaa la yidhaahdaa jacaylku waa mid ka mid ah dareennada qotada dheer ee aadmiga la daris noqda. waa dareen naga awood badan oo ina jiita, inana hoggaamiya. waxaynu ku marti qaadnaa nolosheenna, dabadeed waabuu inala jaal noqdaa oo maba tago. inana awood uma lihin xakamayntiisa, sida goorta iyo goobta uu isku muujinayo, waayo innagoo badweyntiisa ku jirna ayaynu ogaanaa uun. malaa waa taas sababta in badan loo yidhaah waa aragtida iyo daymada hore jacaylku. mararka qaarkood jacaylku waxa uu qofka ugu dhacaa sida tantoobada feedhka oo kale, iyadoo aanu qofku diyaarba u ahayn. sidaa darteed jacaylku waa mid madax bannaan oo iskii u socdo, talena aan ku weydiin, amarna aan kaa qaadan. innana waxaynu wakhti badan iyo tamar dheeriya ku bixinnaa in aan fahanno, la tacaalno ama aan xakamayno, taasoo ka awood ahaan nagu adkaata samaynteedu. si kastaba ahaatee waxaa jira noocyo kala duwan oo jacaylka ah. soomaaliduna waxa ayba noocyadiisa ku sheegaan 7 oo waa tii abwaanku lahaa. caashaq waa 7 haddii la tirshee mid aan tegin taabka laygeli. waata heesta kalena lahaydee oo qaado cabdi tahliil. ma og tahay jacaylku aan kaa jaahil bixiye inuu yahay 7 jaar. gariigii hore iyana 7 nooc ayay ku sheegi jireen oo u kala saari jireen, halka carabtuna 10 gaadhsiiyaan noocyadiisa. si haatee halkan iminka kagama hadlayno noocyadiisa oo kol kale ayaynu u dhigan. waxaynu se isdul taagi doonnaa nooca dhex mara ama ay isu qaadaan dhabka iyo dhadiga dadku, kaasoo aan laftiisu hayn wax keliya ee jaadad kala duwanna siyaabo kala gaarana ugu dhaca dadka. si haatee haddaynu si guud u dul marno, nooca jacaylkaasi waa dareen awood badan oo hal abuur kana curismo 2 qof dhexdood, kaasoo ay sababto aragtida, dhaqanka iyo dooqu. waa dareen wadnaha ka yimaada oo ay hoggaamiso soo jiidasho iyo damac, kaasoo ay tamartiisu tahay naxariis iyo kalgacal uu qofku u qaado qofka naftiisu ka heshay, maskaxdiisuna siisay sawirka ah inuu yahay amaba ay tahay qof ku habboon oo uu ka heli karo liibaan iyo xasilooni nafsadeed, taasoo ah waxa naf kastaa jecesha inay hesho cid iyo meel ay ka hesho wehel iyo deganaansho si noloshu ugu noqoto mid farxad iyo qurux badan. waa qadarin iyo xushmad qofkan kale u hayo ama siiyo, ama labaduba ka siman yihiin, kaasoo ay shidaalanayso danayn buuxda. ugu dambayntii, jacaylku waa dareenka helitaan dhab ah oo herar kala duwan mara. waa daacadnimo iyo dhanka wanaagsan ee dadnimada. waa dareen ilbax ah oo bara qofka inuu qofka uu rabo ku aqbalo sida uu yahay amaba ay tahay. waa dareenka marar badan nafta halis geliya haddii weydo ruuxay doontay ee ay damacday. sidaa oo ay tahay, haddana waxay dadku isweydiiyaan marar badanna ku dhiiradaan in ay yidhaahdaan in jacaylku yahay wax dhib badan oo qaxar badan oo dhamac iyo raran ah oo qofka ku joogsadaa ku gubto. malaa taasi waa sababta loo yidhaah jacaylku waa cadaab loo adkaysan karo. si kastaba ahaatee waxaa run ah dadka aynu inta badan naqaan sheekooyinkooda ama kuwa aynu dhegaysanno heesaha ay curiyeen ee codkooduna soo gaadhay ayaa u badan dad jacaylkooda guuldaraystay ama iswaayey si uun.
sidaas bay dabadeeta dunida fanka iyo suugaantu ku noqdeen masrax loogu bararo diiqo lamaanayaal iscaashaqay oo iswaayey. taallidkeeda labada isela ee uu jacaylkoodu guulaystaa waxay galaan nolol bilaa rabasha oo aan warkeeda cidna maqlin, ilaan iyaga ayaa dunidhan isku ah.